sheekadii carabay daacad jilbis iyo joohaar waa isku soo boodeen waxaa la yidhi hadda ka hor waxaa jiray niman geel jira ah oo geela ku haya kaynbarwaaqa ah nimankaasi waxay ka koobnaayeen 9 nin oo isleeg geeluna wuxuu ahaa 3 kadin ama 3 madax 3 ninba kadin ayay lahaayeen markii hore 3 ninba kadin ayay wateen laakiin markay geela naqa u soo kaxayeen ayaa la isku darsaday maadaama ay ahaayeen ragis yaqaan oo isku deegaan ah geela koowaad oo ahaa geelasha ugu culus ama ugu badan 3 nin oo waday waxaa ka mid ahaa nin la oran jiray jilbis oo kaftan iyo dacaayad badan qof walbana afka iskala gala aqoon ha u lahaado ama yuu lahaane sidoo kale geela labaad oo ahaa kadinaan ka yarayn geeli koowaad isagana 3 nin oo wada waxaa ku jiray in la yiraahdo joohaar oo aan dhib yarayn oo sida jilbis jeclaa inuu qof walba la murmo ama ka xanaajiyo geela saddexaad oo ahaa geelasha ugu yar isagana 3 nin oo wada waxaa ku jiray nin la yiraahdo carabay daacad oo ahaa nin carab la oo aan hadalka karin ama lagu qoslo marka uu hadlo 9 nin waxay wada joogaan oo geela kaymaha marba meel uga gola dhigaanba subaxdii dambe ayaa goor barqaah oo geelu bariisanayo ama la lisaayo ayaa waxaa kaftamay ninkii jilbis la oran jiray iyo joohaar oo aan ka yaraysan ragguna geela ayaa lagu mashquulsan yahay oo la lisaya qayb haruubka ayay sidataa oo waahaaneedaysa qaybina nirgaha ayay celinaysaa ama ugu duduwaysaa qaybina geela ayay celinaysaa oo hojinaysaa oo kaftanka 2 nin cidibadan uma gelin waxaase ag taagnaa ninkii carabay daacad ahaa oo rag ugu dhowaa 2 nin ee jilbis iyo joohaar haddii 4 hadal la isdhaafsaday jilbis iyo joohaar waa la isku xanaaqay oo waa la isku soo booday markii digtiya damta la maqlay ayaa raggii kale si halhaleel ah raggii u kala jiiday iyagoo ku argagaxay oo la yaaban dagaalka meesha ka bilowday maadaama ay ceeb ahayd in 2 nin oo raga oo weliba geel jira ay isqabqabsadaan ama isxagxagtaan hal mar ayaa raggii kale inta ku xanaaqay 2 ninba beerka dhulka loo dhigay oo 2 dible loo xiray ama figle markaas baa inta raggii oo dhan ku xanaaqay waxaa la yiri war maxaa isku qabateen oo isu kiingeeyay markaas baa 2 nin mid kasta wuxuu ku jawaabay isaga ayaa iga gardarnaa markaas baa nin raggii ka mid ahaa wuxuu yiri war rag waaweyn waxa kuma hadlee maxaa isku qabateen oo isu kiingeeyay markaas baa ninkii jilbis la oran jiray wuxuu ku jawaabay inuu iga gardarnaa carabay daacad baa makhraati iga ah markaasuu joohaarna wuxuu yiri anigaba sidoo kale carabay daacad baa makhraati iga ah inuu iga gardaran yahay markaas baa waxaa loo yeeray ninkii carabay daacad ahaa oo xagga geela u daqaqabay intii ragga la xirxiraayay raggii nin ka mid ahaa baa carabay daacad wuxuu su'aalay war carabay daacadow nimankan waxay isku dagaaleen wax ma ka ogeyd maxayse ku direen markaas buu carabay daacad wuxuu ugu jawaabay haa waan ogaa markay dirireen markaas buu raggii oo dhammi wuxuu yiri maxay ku dirireen keebaase gardarnaa bal noo warranoo sidee baa wuxu dhaceen sidii wax kale looga sugaayay ama jawaab saxan ayuu hal mar inta jilbis fiiriyay oo haddana joohaar fiiriyay buu wuxuu ugu jawaabay 2 nin waa isu soo boodeen ilay waatuu carabka la'aaye raggii oo dhan baa inta hal mar yaabay carabay daacad wuxuu ku yiri war maxaa tiri oo kaa yeeray markaas buu mar labaad ku celiyay oo wuxuu yiri 2 nin waa isu soo boodeen ilay waatuu carabka la'aaye kadibna nin raggii ka mid ahaa baa wuxuu yiri war waa isku soo boodeen af maahee 2 nin keebaa khaldanaa markaas buu carabay daacad mar saddexaad wuxuu yiri 2 nin waa isu soo boodeen ilay waatuu carabka la'aaye afkiisa markii laga waayay waxaan ahayn waa isu soo boodeen ayaa raggii oo yaaban wuxuu ku yiri hadday isku soo boodeen maxaan ugu garqaybinaa 2 nin ilaa afkaaga laga waa waxaan ahayn waa isku soo boodeen markaas buu carabay daacad wuxuu yiri inta xariga ka furtaan waxa ku tiraahdaan mar dambe ha isku soo boodinina kadibna sidii baa la yeelay oo raggii loogu garqaybiyay isagoon carabay daacad nina eedaynayn oo labaduba u mahad celinayaan marka saaxiibayaal haba carab la'aadee ninkaasi wuxuu ahaa nin raga oo 2 nin kala kaxayn kara subscribe-tiya like-tiya share-tu waa noo muhiim sheekadeenna maantana halkaas bay noogu egtahay saaxiibayaal